السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا أدبان إدين سلامة وان soo laabtay muddo badan baan ka maqnaa channelka saaxiibayaal marka waan ka mashquulay channelka sababtoo ah maanan haysan waqti ugu filan aan channelka inta soo fariisto aan maxay wax soo diyaariyo mowduuc waliba maxay ahayd waxaan jeclaa markasta wax dhalinyarta markaas ay doonayaan faa'iido ah inaan markasta u soo gudbiyo anigoo markaas oo marka hore channelka u furtin dhalinyarada u faa'iideeyo sida maxay ahayd suuqan online ka aan wada shaqaysan lahayn dhamaantiinba intaan ka aqaano oo maxaydan reeyana aan dhalinyarta u soo kordhiyo si loo wada faa'iideysto waxaan wanaagsan haday maxayda wax isku faa'iideeyo idinkana channelkiina oo kale waay maasha Allah qurxiyo hadda waa soo qurxiseen saas amlo si qurxiyo cidina waa subhan leeyahay kuna soo bir oo maxayda subscribe saara aan saaxiibayaal waxaan idin sheegay hadda kadib in aan rajaynayo inaan maxayda aan maqaal maxayda aan soo diyaariyo hadda kadib aan maxayda juhud soo galiyo oo maqaaladiga maxayda insha Allah idima dhigi karo asbuucii 2-3 jeer maqaal soo dhigi kara laakiin asbuucii inaan maqaal soo galiyo si aan maxayda idinku faa'iideeyo insha Allah taala maadaama anigana hawshiida iska badan tahay hay qof waxna barto shaqeeyo hadii culayskana iska taqaanaan marka sida awgeed baa markii ugu kala fogeysay inaan YouTube kanta maxayda soo fariisto aan wax soo diyaarso fursadiiba aad igu yaratay waxaan idin wada Alibaba waxa waaye waa sida wada ognahay muqaaladan kale horena ugu soo hadlay Alibaba waa platform yani ama suuq online oo B2B la business to business oo maxayda supplierada aad badan ay maxayda ay ku jiraan oo maxayda alaab ay noocaad ka helayso oo hadii ahaan leed alaab maxayda gudaha channel lagu sameeyo alaab aan gudaha channel lagu sameeyin waxaana ka heli kartaa qole caadi oo wholesale iska ay ku factoryal oo warshado oo alaab ay ka sameeya marka kaadishidiisa waxa waaye hoogo qofka markaas ku cusub oo kale waxa laga yaabaa inuu si hoogo ku yar wararo laakiin qofka waa fahamka guud muhiimadda horta intaan maxayda aan idin tusin waxa rabaa inaan idin sheego saddex qodob wax ugu muhiimsan ay tahay in yani Alibaba marka doonaysid inaad qof supplier ka raadsatid oo wanaagsan in yani saddex qaab ay tahay saddex qaab ugu muhiimsan saddex qaab waxay tahay oo supplier ku raadsanaysa waxay tahay supplierka supplier ka raadsanaysid oo yani in alaabta raadsanaysid qabka supplier ka gadaayo waa in uu yahay verified waxa waaye waa calaamad buluug oo tiga oo maxayda ay bixiso shirkadda Alibaba sanadliin waxa laga qaadaa dadka verified ka $10,000 ma garan karo hadii lagu darin karo laakiin sida oga intaas laga qaadi jiray marka dadka verified ka wata marka way ka kalsooni badnaanayaan kuwa aan verified ka ahayn ilaa dad aqoonsi haysta mid kale waxa waaye in aad qofka iska eegtid muddada uu ku soo jiray timeka waqtiga uu ku soo jiray how long qofkan uu ku soo jiray suuqan ka soo ganacsanay soo taasna idan waa muhiim sababtoo ah qof waxa wanaagsan inta badan waxa la raadisadaa oo wanaagsan qof 3 sano Alibaba wax ku soo iibinay oo shacbiyad leh oo dad ay wax ka adeeganayeen iyo qof hadda cusub oo hadda suuq bilaaway isku noqon karto soo qofka cusub waxa laga yaabaa suuqan ku wareero isaga carar lacagta la jabsada laga yaabaa mutahay soo muhiimad xafiyan qof long term business meeshan ku haystay qofkaas oo kale ayaa qof maxay loo kalsoonaan kara marka mustaqbal waxa laga fiiriyaa muddada uu ku soo jiray 3 sano ka badan waa muddooyinka aan idin leeyahay ka fiiriya tan saddexaad waxay tahay inta badan way leeyihiin laakiin waa trade assurance wax la yiraahdo trade assurance-ga waa calaamad gold ah muuqaalka idinku tusi doona calaamad gold ah waaye trade assurance waxay ka caawinaysaa marka aad lacagtaada aad Alibaba appkiis adoo isticmaalayso lacagtaada aad meeshaas ku dirtid for example qofka supplier ka wada heshiisan alaabtii order ahaan oo link ahaan ku soo diyaarinaya lacagta wuxuu ku leeyahay through Alibaba ayaad ku bixinaysaa adoo kaar bankigaaga isticmaalayso kadib markaad ku bixisid Alibaba lacagta ay ku haynaysaa lacagta markay ku haynayso waxay sameynaysaa qofka supplier ka markuu alaabta ku soo gaarsiiyo alaabta ku timaado ama meesha ku balanteen inuu ku geeyo waad heshid baa leedahay confirm kadib Alibaba saas ay lacagta fasaysaa مثلا hadaad helin oo ninkaas uu ku dhaco karo waxa sameyn kartaa Alibaba waa la hadli kartaa oo yani waxa dirsan kartaa message or refund oo yani sababta lagu gudbin doono oo sheegaysa in alaabtiisa ku soo gaarin waqtigii maxay aad ku balanteen alaabtiisa imaan marka saas ba sameynaysa Alibaba marka lacagtaada ku soo celinaysa marka trade assurance dadka supplierada leh inta badan way wanaagsan yihiin mid kale jirta idan aan ku sii daray taas oo ah reviews-ka
يعني markii aad tagtid supplierka profilkiisa waxaad eegaysaa dadka wax ka iibsanayay siday ugu qanacsanayaan reviews ay ka bixinayaan marka muuqaalka ayaan hadda maxay galaya oo idinku tusayo laptop idinku tusayo telefoonka idinku tusayo screenkiisana meesha idin soo saaraya si aad bal u aragto maadaama dadka inta badan telefoon isticmaalayaan marka daawasho waan yahay haatan waxaan ku dhex jirnaa applicationka suuqa Alibaba applicationkan haduu jeedaan Play Store-ka aad kala soo degi kartaan waxaad kaliya qoraysaa Alibaba kadibna halkaas aad kala soo degaysaa waayahay meeshaan wax kasta waad ka helaysaa markaad soo gasho applicationkan alaab أي نوع هذا ربطه original هات هذا ربطه Chinese model هذا ربطه هاتو أي نوع admission كيلسا مركا application ككوسو قشيد قاب كان يلا وقاب كان يكون صباحيا قابتن وهوم هو مش هذا نجمه قابتن tips أيلا لها يعني waxyaabo markaas adiga aad yani ku xiiso gelin oo kale ay ku tusayaan waxa ku saaray qaybtan dhaha cart waa alaab wixii markaas aad shopping garaysanayso adeeganayso kale qaybtan ugu dambayso geeska jirta madaxana waa qaybta my Alibaba la dhaha oo yani profilkaaga waaya oo marka ciwaan hadii anaad ugu jira waa aragtaan Bashiir Aadan adiga hadii kugu jirin sign in ama sign up ku leeyihiin kadibna emailkaaga aad gashanaysaa oo meeshaas sign in ka dhehaysaa meeshan markaad imaadid waxaad arkaysaa my orders wixii markaas aad wax order garaysatay oo idil meeshan aad kala soconaysaa following dadka aad follow garaysay browse history waxyaabaha kugu dambeeyay aad raadinaysay meeshan request for quotation waa meesha la yiraahdo RFQ oo loogu talagalay alaab markii yani aad doonaysid in yani aadan search ka tagin balse aragtid in si qaab fudud ay supplierada hal mar kula soo xiriiraan qaybtan ayaa la isticmaalaa request for quotation la RFQ inquiries marka kuwii ku soo jawaabay halkaas markaa gashid dadkii RFQ-gaaga soo arkay oo idil meeshan ay ku soo galayaan qaybta waxa ku qoran Alibaba Logistics waa logistic oo Alibaba u bixiya logistic waxa la yiraahdaa qolooyinka alaabaha soo qaado ama shipping agents waxa taqaanaan waxaan kala asaas u miina maaha shipping address waa addresskaaga meesha gashanaysid laakiin markaan u soo laabto mawduuca markaan soo laabto yani waxaan imaanaya home ko kale waxaad rabtaa inaad alaab aaraasatid مثلا oo kale alaab baad doonaysaa inaad ka soo adeegatid tusaale maxaan raadiyaa tusaale waxaad doonaysaa inaad raadisid cabaayadaha oo kale baad rabtaa inaad raadiso halkan baa ku qoraysaa cabaaya kadibna waa raadinaysaa kadibna cabaayadaha ayuu nooc kasta ah ayagoo nooc kasta ah oo waliba qaar hataa modelada ugu dambeeyay dizaanada ugu dambeeyay noocyadan oo kale ah idin tusaya just for example noocyadan oo kale sidoo kale noocyadan waaw kuwa washidiin ya noocyadan oo kale kaba daran noocyadan oo kale aragtan baa umaleynaya okay marka saas u soo raadisid saddex qaacido saan hore u sheegay oo la isticmaalayaa jirto maqaaladii horena ku sheegay kow waxay tahay markaad saan u soo raadisid qofka wax ka gadanaysa waxaa ka egtaa inuu verified yahay verified maxay yahay hadda fiir labadan qof ugu horeyso iyo qofkan ku xiga labadan qof kale ku xigto isku qaab ma sababta koom waxay ku dhigiin waxay wataan calaamadaas tigta ah ee buluuga ah ee verified-ka
marka dadkaas waa dad yani Alibaba siiya lacag sanadkiiba $10,000 oo laga qaato ka waa dad lagu kalsoonaan kara. intaas ka gudubtid kadib waxaad fiirisaa muddada uu qofka kusoo jiray. Masalan waxaa wanaagsan qof kusoo jiray 3 sano iyo ka badan. So muddo qof 3 sano ka badan kusoo jiray, hadda qofkan 7 sano kusoo jiray, kuwan 8 sano kusoo jireen, kuwan sidoo kale 8 sano kusoo jireen. waxaa mid kale oo saddexaad aad eegaysa waxay tahay calaamada goldiga la dhahaa trade assurance inay ku jiraan. calaamadan ku sheegaya waa calaamadan la yiraahdo trade assurance. balaadin akhriyo aan ku dhufto. wuxuu ku leeyahay on time delivery guarantee, in yani waqtiga deliveryga aad kula balantay supplierka inay kugu imaanayso alaabtaada. On time delivery will be guaranteed if you order directly via alibaba.com logistics with guarantee delivery. yani haddii markaaseeto aad dalbatay in Alibaba logistics ay ku soo qaadaan alaabtan, in guarantee ay tahay haddii waqtigii ay kugu imaan weyso in mar lacagtaada lagu soo celiyo. refund policy way leeyihiin, quick refund sidoo kale way leeyihiin. okay, marka intaas ka gudubno, saddexdaas waa saddexda ugu muhiimsan oo aad iska eegayso marka aad ka adeeganaysid. mid kale jirto ayadana taas oo ah in aad tagaysa storeka review oo hasta storekan yani dadkan kambanigan ee suuqa wax ku iibinaya ayaa la eegaa waqtiga ay suuqan kusoo jireen. marka meeshii aan kusoo celiyay meesha sagaraynta markaad joogtay aad ku dhufatay qofkii aad doonaysa aad heshay muddo 3 sano ka badan kusoo jiray, sida kan oo kale 8 sano kusoo jiray, calaamadina uu wato verifying uu yahay, like hoos soo aadaysa. marka meeshan ayaa laga helaa profile-kooda. wakana waan idin calaamadeynaya. waa ujeedaan waa verified supplier, waxaa la dhahaa Changsha Loria Garment baa waa shirkad manufacturer ah oo dharkan way sameeyaan, waa shirkad dhan sameysa waayahay, waana verified. waxaa markaaseeto ka fiirinaysaa qaybtan reviews, dadkii alaabta ka gatay qaabkii ay ugu falcelinayeen. sidaan u eegno waan ku dhufaninaa, kadib wuxuu na geynayaa home profile-kooda weynka ah ayuu na geynayaa. waayahay homekooda na keenay profile-kooda. saad ujeedaan meeshan followers waxay haystaan 12,920 follow wadada ku xiran. profile-kooda markaan tagno waa kana reviews-kooda maasha Allah. reviews-kana waxaa laga eegaa haddii qofka 4.5 u kor u baxa 4.5 kor ka sii aada, maasha Allah reviews aad u fiican buu haystaa. waa qof markaas la aamin karo. marka reviews ku soo dhufatisaan meeshan ayuu ku keenayaa. okay, reviews ka aragtaan dadka ka bixiyay, dadka ka adeegtay intooda badan positive ay ka bixinayeen. marka saddexdaas qaab waa saddexda qaab